runtii sharaf weyn bay dawladda Puntland u tahay inay kulamada noocaan oo kale ay martigeliso waxaana ku baaqaynaa kulamada geedi socodka Soomaaliya loogu hadlayo inay Puntland aad u soo dhaweyso waxaan jeclaan lahaa inaan halka maanta ka sheego inay Puntland diyaar u tahay inay martigeliso qodobada aadka looga doodo oo mar walba soo noqnoqda oo la yiraahdo maqaamka Muqdisho in garowga looga hadla soo dhaweynaa Muqdisho waa magaalada madaxda Soomaaliya waa magaalada astaanta waa qaranka Soomaaliyeed maqaamkeedu inuu dood aan dhamaanin ku jiro aad bay noo dhibaysaa xaqiiq marka waxaan jeclaan lahayn dood furan oo cid ka sheeganayn Soomaalidu iyo miir qabtay intay isugu timaado waliba Muqdisho laga soo fogeeyo ilaa ninkii dooda weyn qabay hadii la gurigiisa loogu tago Ali Maxamed Geedi halka jooga waxa dhici karta hadda dhaqanka waxay noqonaysaa inaan laga careysin inaad maartay gurigiisa ugu tagto marka waxaan leeyahay in meel ka soo fog oo la isugu yimaado oo si fiican loo doodo qodobkaas waa qodobada ugu xasaasisan inta aan ka warqabo waxaan kale oo ii muuqanaysa runtii si la furan in loo wada hadlo waxa ayadana ku soo dhaweynaya halka arinta Soomaaliya iyo Somaliland iyadana waa caqabad kale oo hortaagan dastuurka aniga saa u dhigi maayo Soomaaliya iyo Somaliland wax la yiraahdo sida hadda entity-gu uu jiro laakiin waxaan qabaa walaalahan gobolada waqooyi jira ama maamulka Somaliland inaan iyagana garow yimaadaan oo dooda ka qayb galaan oo doodaha ay qabaan ay soo dhaweystaan inaan doodeena dhiibano dadka la hadalno kama baqayno dadka reer Puntland waxaan ku boorinayaa inay wada hadal ka baqin haddii xujo fiican haystaan way haddii kale waxa u muuqanaynaa dad aan xujo haysan dawladda Puntland asaaskeeda iyo marxaladii loo maray iyo dadka aasaastay iyo xuduudaheedu wax mugdi oo ku jira ma waa cadi cid awood gaar ah u leh oo gorgortan ka gali kartana ma jirto dadka dhistay way cadi waa maamulka kaliya oo deegaanadaas dadka ay degan yihiin kulligood intay isugu yimaadeen muddo badan fadhiyeen go'aan rasmi ka qaateen oo iyada oo muuqaal iyo cod iyo document la hayo maamulada kale qaybtooda halkii jiro waad ogtihiino jujub baa lagu dhisay dadkooda joogin Somaliland waa ogtihiin boor baa lagu dhiso dadka ka qayb gal waa taqaanaan iyo dadka ay sheeganayaan xaqiiqada in la iska indhatiro ma la rabo